waxaa maanta magaalada Berbera si rasmi ah looga fadhiistay imtixaankii shaqo qaran waxaana imtixaankaasi u fadhiistay 115 arday waxaana gobolka Saaxil laga doonayaa inay ka soo baxaan 110 arday gudoomiyaha gobolka Saaxil ahna gudoomiyaha barnaamijka shaqo qaran ee gobolka Saaxil ayaan isagu gabi ahaanba ka soo xaadirin goobtii imtixaankaasi lagu qaadayay waxa ugu horeyntii warbaahinta la hadlay sarkaal ka socday xafiiska imtixaanaadka qaranka Somaliland iyo isuduwa ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Saaxil waxayna ka warameen imtixaankani maanta oo ay bishu tahay 22 kuna beegan maalin Sabti ah waxa gobolada dalka oo dhan ka bilaabmay imtixaan laga qaadayo ardaydii u fadhiisanaysay mashruuci shaqo qaran badankoodii soo xaadiray imikana imtixaankii uu bilaabmay oo ay fasalada ku jiraan mashruucani wuxuu ahaa mashruuc aad u ballaaran marka dhan laga eego wuxuu ka mid ahaa ballanqaadyadii dawladda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi markuu xukunka qabtay ku ballan qaaday inuu fulin doono waa barnaamij la doonayo in lagu hormariyo ama lagu dhiirigeliyo sidii ardaydu ay u heli lahayd fursado shaqo imtixaanka gobolka Saaxil ee shaqo qaran waxa lagu qaadayaa dugsiga sare ee Bursade dhinacyo fara badan ayaa imtixaankan qaadistiisa gobol ahaan ka qayb qaatay gudoonka waxbarashada ee gobolka ayaa ugu horeeya waxa kale oo ka qayb qaatay ciidamada ammaanka oo booliiska gobolka Saaxil waxa laga doonayay inay u fariistaan 110 meelaha way fadhiyaan imika tirada guud ee soo ablay garaysay ee uu siday munaaqibku waa 154 imika waqti xaadirkan aynu joogno inta imtixaanka u fadhiisatayna waa 115 difference halka u dhaxeeya waa dareemi kartaan waa 40 waxa weeye 30 arday 40 arday xiisada dambe cidi soo korodho oo aanay ogeynba dhici karta imika waxaad arkaysaa qaar xilli dambe inoo yimi oo imika inoo soo galay 8 soo galay marka waxa dhici karta in xiisada dambe 107 inoo gasho 108 inagu almost waxaynu ka rabnaa inta fadhiisatay inay inoo galaan 104 inooga soo national exam way xafiiska imtixaanaadka qaranka ayaa qaaday uu madax bannaan yahay aan kugu daray 6 gobolba waa loo wada fadhiyaa saaka isku mar ayaanu ka bilaabmayaa xafiiska imtixaanaadka saxaya Qaasin jaamac wararka telefishinka Sam News magaalada Berbera.